السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadkana dhegeysanaya waxaan ka barya subxana wa taala khayrka inuu nagu kulmiyo aakhariya adduunbana inaa xifdiyo inaa wada badbaadiyo. kelmaddayda maanta waxay ku saabsanaan doontaa arrin kooban oo aayadda qur-aanku ka hadlay inaan si guud naftayda iyo walaalahay ugu baraarujiyo. ilaahi subxaana wa tacaala isagoo faraya dadka ku dhiirigelinaya in camalka la qabanayo lagu saleeyo alla ka cabsi iyo daacadnimo, isagoo dadka ku dhiirigelinaya yaa dhinaca kalena wuxuu baraarujiyey inay dhici karto wixii wanaagsanaa ee muuqaalka khayrka lahaa in si xun loo isticmaalo ay dhici karto, iyadoo ummadda mardaba iyo laga shaqaynayo. suuratu tawba ilaahay markuu kaga sheekeeyey qolyo waxyaabihii astaamihii iyo muuqaalkii iyo waxyaabihii muhimka diin ahaan dadka ugu ahaa, quluubtoodana qiimaha iyo makaanada iyo darajada weyn ku lahaa, inay si xun iyo lugooyo iyo khayaano iyo mardabo iyo dibandaawo u adeegsadeen, muuqaalkan ay qurxiyaan, hoostana ay mushkilad iyo dhibaato iyo sun ka shaqaynayeen. iyo kadib ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaanin khayrun aman asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fi naari jahannam. miyay siman yihiin, isku mid miyaa qof ku aasaasay dhismihii iyo wuxuu dhisayey, dhismahaasi ama waad xisi oo muuqdo oo guri la dhisayay ha noqdo, ama wax macnawi oo muuqdo wax macno ahaan la dhisayo diin iyo dunya ha noqdee, qofku u saasaasay oo ku dhisay oo gundhig iyo aasaas uga dhigay calaa taqwa min allahi wa ridwaan, ilaahay cabsidiisa iyo xuduuddiisa oo la ilaalinayo, iyo ridihiisa iyo raalligahaanshihiisa oo la raadinayo oo lagu doonayo, miyaa khayr badan? makaasaa fiican mise aman asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin, mise mid dhismihiisa ku aasaasay meel gebi oo dumaysa kadibna fanhaara bihi fii naari jahannam, uu naar jahannama kula dumay. rabbi subxana wa tacala wuxuu inoo tilmaamayaa markii wax la dhisayo, camal la samaynayo, qofka muslimka cabsida ilaahay inaynan ka madhnaanin. wax kastood dhisayso, guriga reer baad dhisaysaa, waa guursanaysaa, guriga aad dhisaysa iyo reerka iyo qoyska aad asaasayso, ubad wanaagsan baad ka rabtaa, guri qabo oo degan oo nabadaad ka rabtaa oo wanaaga, dad wanaag ku wada noolaadaad ka doonaysaa, ubadka iyo wanaaggaasi mustaqbalka inay ku anfacaan baad ka rajaynaysaa, ama si gaara ama si guudba ummadda anfacaan. inaad alla ka cabsi ilaahay raaligelintiisa ku aasaasto, inaad xaaraan kaga badbaado, inaad xiriir gogol iyo shahwadaadii gudashadeedu xalaala ku hesho, in ilaahay ilmo wanaagsan kaa siiyo, sidaa inaad ilaahay ku aasaasto ood ilaahayna kaga cabsato dee aadan luuqluuq xaaraan u marin, aadan meherxad iyo dabawareeg gelin, aadan guurka u samaynin markaad dhisayso reerkii samaynaysa dembi iyo xaaraan iyo aadan samaynin, waxyaaba xaaraamtaad iska ilaaliso. iyo way kala duwan tahay guur ku salaysan mardabo, musuq maasuq, inaan ku dhoofaan rabaa, ragga gabadhu ay leedahay ama ninkuu leeyahay waan ka tashan doonaa, guur ujeeddo kale leh, in la ysxada la rabo, waxbaan ku samaysanayaa la isleeyahay, waxbaan ka macaashayaa laleeyahay, dembi iyo macasiya lagu samaynayo, xumaanta iyo xaaraan lagu aasaasayo, meherxad iyo masaafe iyo waxaan wanaagsanayn lagu aasaasayo. ama kambani iyo shirkad baad dhisaysaa, ganacsi iyo risiq baad ka rabtaa, naftaada iyo maal iyo xoole inaad ku shaqaysataa rabtaa, inaad ilaahay cabsiisa ku salayso, xoolahaad ku aasaasaysaad xalaal ka dhigto, waxaad ka shaqaynaysaad xalaal ka dhigto, ujeeddadaada aada wanaajiso, xuquuqda dadka aad ilaaliso, iyo inaad waxanba u samaysay inaad wax ku dhacdo, inaad wax ku xaddo, inaad wax isku dabamariso,
dad inaad ku lugoyso, qolyaa u qaadanaya NGO u samaysanaya inay xoola la dhaco, kuwa qandaraasya in lagu qaato waxa la dhaco u qaadanaya, kuwa laalush in lagu urursada u samaysanaya, kuwa inay xaaraan ka shaqeeyaan u abaabulaya. kadib ninna risiq xalaal uu ka helaya, qayb buu sadaqaysanaya, naftiisa iyo dadkiisa ku anfacaya, aakharana jannu ku gelaya. midna adduunkana mardabada iyo lugooyadaasu kaga shaqaynaya, wixii dembi baa loo qoraya, waxay sameey wixii oo dhan baa loo koo diiwaan u gelaya, naar buu ku mudanaya, fannaara bihi fi naari jahannam. dad baa ururo samaynaya oo dhisaya, inna ururka wanaag iyo bulsho, in xumo lala dagaalamo, in dad wax lagu baro, in khayr iyo wanaag loogu shaqeeyo u samaynayaan. inna burcadaas iyo isbaarooyinkaa iyo subabaawa buu sameeyey iyo kooxa jaba burcadoo wax booba wax dhaco samaynayaa. kuwa si khaldan loogu talagalay oo xisbiye iyo wax jinniya jaambu ka shaqaynayaa, ummad lugooyadeed buu ka shaqaynayaa. kaasina isagana wixii dembi ay galaan oo dhan buu qayb ku yeelanayaa, isagana inay galaafataa dhici karta, fanhaara bihi fi naari jahannam ay noqonaysa. kuwaa dugsi qur-aana dhigaya, kuwaa masaajid dhisaya, kuwaa madrase dhisaya, kuwaa iskuul dhisaya. midna wax risiq xalaalana ka raadi, xilka iyo waajibkana ilaali, ilaahay dartiina ka dhig, wixii khayr iyo wanaagaad samaynaysa u sameeyaa. midna magaca masjid buuga yeelaa, meeshan dugsi qur-aana lagu magacaabaa, laakiin lagooyi iyo mardabaa lagaga shaqeeyaa. dad wax lama baro, dugsi iyo iskuul baa la dhigayaa, muhiimaddu waa dadka in fi iyo wax laga qaato, inaan wax la barinna waa laga shaqaynayaa. cid wax bartoo fiican la keeni maayo, aadaab iyo akhlaaq la ilaalin maayo. muhiimaddu waa hunguri iyo wax in laga helo way. kadib ba waxaa imanaysa carruurta haddaan durbo wax baro, kastan baan waayayaa. kuwa masaajid dhisaya oo lugooyi iyo mardaba u dhisaya, kuwa makarafoon bannaanka la taagan, masaajid lacaga ururinaya. mid waa ilaahay dartii, dadkii ha la caawiyo, dadka masaajidka loo dhisu ka shaqaynaya. midna halkaas wuu ururinayaa, masaajidna ma dhisayo, wuxuu jeebka ku rituu raadinayaa, been buu dadka u sheegayaa. waxaasoo dhan buu ilaahay isku soo wada daray. wuxuu yihi faman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaanin khayrun am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fi naari jahannam. labadaa kee fiican? dabcan qofka muslimkuu garanaya ka fiican. aayaddani maxay gunaanad u ahayd? nabi maxamed oo nool calayhi salaatu wassalaam oo madiine la joogo baa masaajid mardaba laga ag dhisay. waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniina wa irsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu min qabl wala yaxlifuuna in aradnaa ila alxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun laa taqum fiihi abadan lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi rijaalan yuxibuuna an yatataharuu. aayad kale wuxuu ku sheegay iyadoo waxyi degayo, iyadoo nabi maxamed noolya calayh isalaatu wassalaam, iyadoo madiine la joogo, waxa ugu qiimo badan muslimiintana ay isugu yimaadaan ee waxyiga iyo talada ku qaataanna masjid tahay, baa masjid mardaba laga ag dhisay. muuqaalkii waa masjid, waa beyt ilaahay, mixraab iyo qiblo leh, loo sameeyey dadka sida loo muujinayo laga aadaamayo, allahu akbartu ka yeedhayso, laleeyahay jamaaca lagu tukanayaa. waa muuqaal aada u qurux badan, waa camal aada u weyn islaamka agtiisa iyo masjid. laakiin masjidkani masjid buu muuqaalka ka yahaye hoosta waa ka mardabo, hoostu waa xuma ka shaqayn. maxaa loogu talagalay? diraaran, dhib baa loo sameeyey meeshani. khayran looma samayne, taqwa min allahina laguma aasaasine, diraaran dhib iyo ummadda kala geynteeda. tafriiqan bayna almu'miniin, in la qaybiyo. wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulah, cadow dibadda laga soo xareyn rabana intay cimaamado soo xirtaan oy takbiirta dadka la soo qaadaan, halkaa inay ugu gabbadaan, mardabana ka shaqeeyaan, ciidanna lagu ururiyo baa loogu talagalay. laakiin waxaa ka hoos baxday xilliga nabigu noolaa alay slam waxay soo degayay. marka masjidkaas cadow baa loo samaystay. wa irsaadan liman dhufaysin looga dhigo liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qabl. haddana waxaa lagu daray dhaar beena, wala yaxlifunna in aradnaa ila alxusna, waxaan khayr iyo wanaag ahayn ma rabno. marka haddiiba nabi maxamed oo jooga la isku dayay sal alla alay wasalam, masaajidna laga dhigay,
laakiin hoosta xumaati iyo mardaba ahayd tusaale qur-aanku inoo siiyey. halkaa waxaad ka garanaysaa dadka muslimiinta mar digniin bay u tahay, oo wax waliba dad feejigan oo waxa soo kordhaya fiirinaya, oo dadka wada iska fiirinaya, oo waxa meesha socda iska fiirinaya, oo digtoon inay noqdaan baa la rabaa. in shaati laguu soo xirto diineed, cimaamad beena laguu gashado, haddana logooye iyo muslim logooyadii laga shaqeeyo, muslim kala dirkii laga shaqeeyo, muslim dhibkii laga shaqeeyo. nabi maxamed oo joogaa la isku dayay sal ly slam. kor waa ka quruxsan yahay, laakiin waa hooska laa, hoosta dhib iyo mashaakil baa jira. aw man asasa bunyaalahu calaa shafaa jurufin haarin fanhara bihi fi naari jahannam. waay nabiga alai slam say sheekada ay dadka ugu qanciyaanna, nabi maxamed baa loo yimid oo kaalay ku tukanaya, dadka adoo ku tukana ku arkaan. qur-aan baa soo degay, waxa la meeshan marda baa loo dhisay, isagana ha la dumiyo ha la gubo, adigana weligaa ha ku tukanin, laa taqum fiihi abadan. markii isku dayga ay isku dayayeen waxay islahaayeen wax la garan karo ama la fahmi kara maaha. wuxuu ka mid ahaa kuwa ilaahay ku tilmaamay wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal. makriga iyo dhagartooda adaygeeda buur dhanood meel ku ogeyd iyadoo baaba'da inaad soo tooso dhulkiiba la kala garan waayo, meel buurtii awa dhulkii awa wada siman yah bay ku dhowaadeen. tanoo kalea ka mid ahayd, waa la kashifi ma lahayne, laakiin waxyi baa yimid. walidaalika ilahi wuxuu yihi weligood intay nool yihiin urku taalla iyo xanuun arrintii ka fashilantay ka dayn mayso. laa yazaalu bunyaanuhum aladii banow riibatan fii quluubihim ilaa an taqataca quluubuhum. waxaynu joognaa zaman fitankii bateen, shaatiyadu fara bateen, shaati badan oo diin iyo dunyaba oon asaas fiican ku taagnayn la isu soo gashanayo. qaar baa dugsi si khalad u furanaya, qaar baa masaajid si khaldan u dhisanaya. haddiiba qur-aanku ka sheekeeyey nabi maxamed oo taagan masaajid beena in la isku dayo sal ly slam, saa in loo sameeyo oo mardaba ka shaqaysaay, in wax walba la isku dayayo, si walbana mardabada loo samaynayo, halkaa waad ka garatay. saas darteed dhaarna lagu daray, ilaahay lagugu dhaaranayo. saas darteed baa waxaa loo baahan yahay dadka muslimka ah in ay digtoonaadaan, inay arrintaa iska ilaaliyaan. saas darteed iyaguna aasaaskooda iyo camalka ay qabanayaan diintooda iyo dunyadoodaba alla ka cabsi iyo xaaraan iska ilaalin iyo wanaag ka shaqayn iyo xalaal raadin ay ku saleeyaan. ay ogaadaan rabbi baa la xisaabtamaya. natiijaduna dad waad dhibi kartaa, laakiin hadda naarun baad kasban, aakhare meel xun baad isgeyn. qofkuna aakhiradiisa inuu u tashado ka fikiro wax loo baahanya. ilahi subxana wa tacala ikhlaaska allahna waafajiyo, mardabadaa iyo dadka ka shaqeynayaan ummadda allah ka badbaadiyo dhibkooda. jazakum allah khayran. assalaamu calaykum waraxmat ullah.